haddii aad tahay qof naxdin badan ama qof waayeel ah, fiidiyowan ku diran yahay, fadlan ha fiirso. Sideen ku heli karaa iswiig marka ugu fiican iskuulka? Anigu waxaan ahay managerka iskuulka ugu weyn caalamka. Halkaana waxaa horteeda taagan dhalinyaro u tartamayso si ay u noqdaan xubin ka mid ah iskuulka ama xubin u tartamaysa dabaasha. Halkan waa iskuulkayga, wuxuuna leeyahay barkad dabaal aad u wanaagsan, waasacna u ah, iyo macallimiinta kuwa ugu fiican. Meeshan waxaa ku diyaarsan 8 dhalinyaro oo u tartamaysa midkii noqolaa kan ugu horeeya. Aniga waxaan rabaa kan ugu fiican. Ardaydii waa tartameen. Waxaan mid iyaga ka mid ah ku arkay inuu aad u dheereeyo, qanacsi sida uu dabaalahayo iyo gacmihiisa iyo lugihiisa caafimaadka qabo iyo sida dhaqsida leh oo dhalinyarada kale ugu hormaray. Runtii wiilkaas dhalinyarada waa midka u baahnaa inaa heshiis la gaaro. Waana u sheegay inuu asaga ku guuleystay tartankii, waana u hambalyeeyay. Runtii asaga wuxuu u farxay sidii cunug yariis oo bushkuleeti loo soo gado kale. Waalidkiisana aad ayay ugu farxeen. Wiilkiina heshiiska ayaa ka saxeexay. Waxaan u waday dhankaas iyo qolka operationka. Waxaan afeystay mididayda silfarta ahayd, kadibna si tartiib ah ayaan gacanta ugu gooyay. Dhiig badan ayaa ka yimid ilaa miiska ku dareeray. Asaga laakiin wiilkiisa ayuu ahaa, wax dhaqdhaqaaq zaid ah ma suubin. Kadibna waxaan ku fadhiisiyay kursiga curyaamiinta. Baabuurkayga ayaana saaray. Waan ogaa asaga inuu wax fiican sameyn doono, sababtoo ah mar walba iskuulkayga waa kan guuleysta. Iskuulkana waa kuwa curyaamiinta ee naafada ah.